gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID ayaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa kadib safar uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaana garoonka cigaal ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka UCID gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa qolka nasashada kula hadlay warbaahinta kala duwan waxaana ka warbixiyay socdaalkii uu ku tagay wadamada bariga Afrika kaas oo uu sheegay in ujeedadiisu ahayd taageerida qaran bixiyayaasha doorashooyinka Somaliland دانو هذا واحد مغنى إلى صدق يتوين بنا المغنى وحنا صومر ودمدا إثيوبيا كينيا يو تنزانيا صدق هذا بنا صومري وحنا هاد سؤال في وحها إن لا سوق كل ما مكان ساي international community muhiimadda uu weynaa waxay inaan ka raadido shan ugu baahanahay voter registration-ka diiwaangelinta bixiyaasha oo bariyaha baan ka shaqeynay saddex xisbi iyo commission iyo dawladda ka shaqeyn jirtay kuna heshiina hab loo sameeyo ayaa macno markaa saddex xisbi afkooda ku hadlaya ayaan tagay dhulkaas marka waxaan u soo raadiday macnaha weyn ee u leedahay Soomaaliyeed diiwaangelintu waqti go'aan gacdo si doorashada ugu suurta gasho iyo dhibaatada ka iman karta haddii doorashada dib u dhacdo ayaan u soo iftiiminayay go'aankii aan wada saxnay wasaaradda dakhliga iyo commissionka iyo saddex xisbina waan u geeyay marka waxaan hadda kubaddu xaqiina taala marka ayaguna aad iyo aad bay way noo ballan qaadeen inay hadda process-ki bilaabaan dhanka kale waxa uu ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay Puntland waxaan ugu baaqay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inuu ka daayo faragelinta iyo sheegashada deegaanada Somaliland waxa kale oo xusay gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe in aanay marnaba aqbalaynin in doorashada madaxtinimada Somaliland hal maalin lagu daro وقت كذا ما هدو دور سودي ولا الباب كبحية سوما نرجعها كبحة معها ريال سوما ندي تنوين الكوريو تي بدل تاجن دولة بالله سمينا كل ميلجارا أو كل ميهن وأنا خبك يلا دوتون شيء لكن كل استنبه كورس حرام كفردا برمان حرام كفردا هذه الدولة حرام نقط gabagabadii Faysal Cali Waraabe waxa uu soo dhaweeyay socdaalka madaxweyne Silaayo kun gaala bixinayo qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaan jeclahay halka inaan ka balayo madaxweynaha tagay bariga waa tagay ilaa asqar bay ugu dambeysay inuu tagay arintaas waa arin habsaantay waa hawl qaran baahad laakiin waxa ka fiican dhulka inta tagin inaad maamul ka sameysay sharciga ka socdo inay joogaan horumar geysi dhibaatada bariga aad bay dacwooyinkooda u geeyeen dibadda u badan dacwada geeyeen waxa weeye in Soomaaliland bariga ay marginalize gareysay haddaba hadalkan bogaadinta ah ee ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID ayaan ahayn siyaasigii ugu horeeyay ee soo dhaweeyay socdaalka madaxweyne Silaayo ku marayo qaar ka mid ah gobolada Somaliland ee dhammaan waxa si weyn u soo dhaweeyay shacbi weynaha reer Somaliland Cabdishakuur Haybe Somsa TV magaalada Hargeysa